بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامة ولاله قالقة قيمها بدن شرفت بدن دونيدا دافهيدا ميل والبا جوجتين وولاشين مريان رون جنالك أنا قد داونيسان ومريان رون أوفيشنال marka waxa idin leeyahay soo dhawaada channelkayga hadii ay tahay markii kuugu horeyso oo channelka aad soo booqatid subscribe leh gambaleelkan on ka dhiga soo ku soo gaaro wax walba aan soo dhigo insha Allah. marka waxa idin leeyahay asxaabta channelkayga ku cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta hore ila joogtayna waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo ku xirnaanta channelka. marka waanta waa kan Maryan Roon oo idin wado dhadhanaan yara idin wada ma sha Allah. beryahan xoogaa YouTube ka waa ka maqnaay oo xoogaa waa iska mashquulay marka ma sha Allah maanta waa kana waa idin soo laabtay asxaabteed waa idin xiisay ma sha Allah. marka maanta waxaan rabaa inaan wax yar dhadhanaan ah idin soo galiyo maadaama soo ramadaanki kadib aan wax dhadhanaan aan sameysanin. marka maanta asxaabta guriga joogto waxay dheen dhadhanaan u xiisnay marka maanta afaarahan ka soo tuuranay. markii idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah. marka waxa idin la wadaagayaa hadoo alle idma nafaqo bajiyo iyo leeleefo waxyaabahaas dhan channelkayga waa ku jira. marka maanta saan u sameeyay ila daabada waxaan soo jarjaray baradho waayo aan khobka ka soo fiiqay aan soo jarjaray oo biyo ku soo hafiyay waaye biyaan ku soo kariyay waa ka hadda biyihii ka soo saaraya waa ujeedin way kulushahay. marka biyaan ku soo kariyay biyo caadi aan ku soo kariyay baradhada inta fiiqay oo afar jab aan ka dhigay xabadiiba 4 jab aan ka dhigay ama 4 gabal aan ka dhigay waxaan ku soo kariyay biyo. marka labada xabo oo ukunna waa waxaan soo kariyay baradhada marka inaan dhaqay ukunta waxaan ku dhaxriday baradhadii aan karinayo aan ku soo dhaxriday. marka hadeertaan baradhada waa soo kariyay intaas ma idin tusin laakiin baradho biyo lagu kariyo qof kasta iska fahmi kara. hadda marka waxaan ku soo shubay saxanka aan ku soo shubay baradhadu way kulushahay haddaan biyaha ka soo bibixiyay. marka waxaan sameynayaa galaaskan dabadiisa aan ku soo jijabinayaa adiga hadda way kulushahay oo hadda waxaan galaaska aan u adeegsanayo kuleelka dartiisa waaye. marka gacantaada waa ku jijabsan kartaa wixii kale aad heli kartid aad ku jijabsan kartaa. marka makiinada oo wax lagu shiidataa waa ku shiida kartaa. marka qaabka markaas adiga ku sahlan u sameey kartid u sameysanaysa. marka wax walba wax waa fikradaada iyo qalabka haysatid ay ku xiran tahay. marka aan hadda maba isshideenin oo wax kale ma raadinin. marka galaas aan ku soo jijabinaya maadaama baradhada ay kulushahay zaaidna aan u soo bisleeyay ma sha Allah si fiican aan u soo bisleeyay. marka khobka lagu kariyo marka la fiiqo oo biyaha lagu saaro waxa fudud in khobka marka ka fiiqdid oo caadi u saartid dabka markaas aad ay u jilcan tahay. marka hada baradhada markaan soo jijibiyo waxaan ku soo daray hal xabo basal guduud aan soo jarjaray iyo xoogaa kabsar caleen waaye. waxaan kaloo ku soo daray hal xabo oo jubbe ama maraq digaag qof walba soo u yaqaano. marka hadda waxaan sameynayaa maraq digaagi iyo kabsarti iyo basashi aan soo dhaxgelinayaa maadaama aan soo daray maraq digaag. hadii aad rabin maraq digaag cusbaa ku bedelan kartaa. marka waxaan soo dhaxgelinayaa basashi iyo kabsarti iyo baradhadi iyo maraq digaag inoo dhinac u bato ma la rabo oo meel dhanaan ay noqoto meelna xabxab ay noqoto ma la rabo. marka hadeertaan wixii dhan waa soo dhaxgeliyay. hadda waxaan sameynayaa waa kuuskuusanaynaa waxaan ukuntina waatana xabadii waxaan soo dhigay 4 jabaan soo dhigay. marka meeshan kale waxaan soo diyaarsaday bur iyo sacfaraan ama food color midka aad haysatid midka oo jaalaha waaye aan isku soo qasay. marka sidii hadda sambuuska fooliyada burka la marmarina camal aan ka dhigay oo hadda adeegna ma ahan jileecna ma ahan. hadda waxaan soo qaatay xoogaa oo baradhadii aan soo qaatay dhaxdii aan xoogaa balaariyay jab oo hadda waxaan ku soo daboolayaa oo ukun jab ukun hadda saas dhaxda u soo galiyay. waxaan ku soo daboolo baradhadii hadda waa soo kuusay waa ujeedin baradhadii ma muuqato ma sha Allah. wixii dhan waxaan ka soo dhigay si balooni camal aan ka soo dhigay jabki baradhadan jabka oo ukuntana dhaxda ugu jira. haddana xabada labaad aan sameynayna waa kaas marka hore wax balaarinaya baradhada ka dhigaysa. marka dhaxda u godid waxaa sameynaysa jabki oo waxaa soo qaadanaysa oo ukunta ahayd ukunta waxaan ka dhigay xabada ukun waxaan ka dhigay 4 jabaan ka dhigay xoogaa jabkeeda woo yar yahay hadaa rabtid xabada ka dhigi kartaa
hadaa rabtid jabka oo ukunta markii oo laba loo dhigo dhig aad ku sameysan kartaa. marka hadeertaan aan waxaan rabaa wax isla eeg oo qurux badan inay noqoto dhexdan baradhada waxa ay ka muuqato ukunta. marka waxaan sameeyay xabada ukun waxaan ka dhigay 4 jab aan ka dhigay markaan dhexda ku dhuftay hadan aan kala sii gooyay 4 jab aan ka dhigay. asxaabteeda waxaan rajeynayaa inay fahamteen. hadana waa kaas jabki kala hadan saas dhexda u soo galiya baradhada isku soo celcelinay baradhada way ku jajabsan tahay jileec waaye. marka wax biyo ma ku dareys marka jajabisid. marka maasha Allah waa ka saaseta u soo sameeyay gacantaada meel walbo oo markaaseed isdhees way ka feedan tahay raacsiinaysa maasha Allah. marka hadda waa ka saasa u soo sameeyay marka hore diyaarso kadib hadana markaas aad sameynaysa. hadda xabad kasto markaan sameeyo aan kuuso waxaan soo saaranayaa meeshii aan soo saaranayaa. hadan waa ka xabada afraad aan soo gal hadda saan afarta xabo oo aan sameeyay nafaqo hal xabo oo kuna saas ugu sameeyay. marka hadaa rabtidna jab caadi ah ka dhigi kartaa hadii rabtidna xabada ka dhigi kartaa. marka jooska ada iska aan qaabkaas aan soo sameeyay. hadda marka afar xabo aan soo sameeyay waa u jeedin qaabka aan soo sameeyay maasha Allah. marka waa ukunti ma muuqato dhexda ugu jirta. hadda waxaan sameynayaa burki aan soo qasay aan dhexda ugu galiyay. burkaan rabaa inaan ku duugduugo nafaqada markaan burka ay wada aan saliida ku soo riday saliideedana waa ii kulaatay maasha Allah. waa kaas xabadka koobaad aan ku soo riday saliida way kulushahay maasha Allah. nafaqadin waxaan sameeyay burkii oo kalarka jaalaha aan ku soo daray aan dhexda ku soo galiyay aan ku soo lalabay ama aan ku soo duuduugo. waa kaas hadda meel ay ka muuqato malahan saaseetan ku soo wadaaya. marka hadda saana uu soo riday marka hore saan u diyaari waa aragteen meesha ii taal saana ku soo wadaaya waa isku soo laabanayna insha Allah. asxaabe waa kana maxaa ka dhihi lahaydeen afaaraheena saasa u soo diyaarsanay maasha Allah. kaala arag basbaas cagaar waxaan ku dhahay leeleefo maasha Allah. nafaqadeeni bajiyo bur marka maanta maadaama ay jumco iska aheyd xoogaa xaafada dhadhanaanay u baahnaayeen marka dhadhanaankaas ugu soo tuuray. leeleefo janalkeyga waa ku jira hadii aad jeceshahay inaad ka faa'iideysatid dib ugu noqo. bajiyo waa ku jira maasha Allah. janalka waa iska camiran yahay maasha Allah waxyaabo badan ku jiro marka ka faa'iideysa insha Allah maasha Allah. basbaaskaas cagaarko saas uu quruxda badan u soo sameeysanay. marka hadda saxan aan soo diyaarsado waxaan rabaa afaaraheyga inaan isku qabto aniga koow aan bilaabo maxaa la dhahay ninkii u dhow dheefta kala baxaa la dhahay maasha Allah. waxaan rabaa maadaama aan soo diyaariyay waxaan rabaa koow inaan isku qabto oo wax la iiga sheegin aan rabaa oo alla dhihina waa macay anaaba inaan ka warkeena rabo. marka maasha Allah waa ka saas soo diyaarsaday saxankii. hadda waxaan ku soo darayaa leeleefo waa u jeedi maasha Allah sida rasiin maasha Allah qurux oo uu yahay dhadhankiisana maasha Allah waa ka daran yahay. marka waxa idin leeyahay ka faa'iideysta insha Allah. Soomaali meel walba aad joogtiin waxa idin rajeynayaa caafimaad.